بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت واحد سووكين يارني وحن قبرنا شركي قلاد حاء وحالكم فرديا حسب الكلمية هالكم واحد فرديا قدوميه قلاد حاء حقيه يقاله وقت أي شيء يعني شرعية وحق السينية حقيها إن وحنو قبلنا هدي لهاي رامش لو قبلنا يو وقتك يو حيدين شيء دونا حقيقة قلها حسب الكلية waxaanu maanta iclaaminaynaa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu iclaaminaynaa inaanu shirka qaban doono 23ka bisha dambe ayuu ka furmayaa magaalada Boorame February bisha labaad 23keeda ilaa 24keeda ayuu socon doonaa waxaanu ku qabanaynaa shirka magaalada Boorame waa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe uu yeesho sidaas awgeed waxaanu iskugu yeedhaynaa oo aanu maanta baaq u direynaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye meel kasta oo ay joogaan inay shirka ka soo qayb galaan oo 23ka bisha dambe ilaa 24ka ka furmi doona magaalada Boorame isla markaana 10ka bisha markay gaadhana aanu halkan xarunta aynu maanta joogno ka bilaabi doono kaar qaadashadii shirka lagu galayay ee qaadan lahaayeen xubnaha golaha dhexe wixii ajanda iyo waxa kale laga hadlaayo waqtigeeda ay noqon doontaa maanta waxa kaliya aan isku keenay waxa weeyaan inaanu baaq u dirno xubnihii golaha dhexe oo ay yimaadaan oo ay fariinta noo gudbisaan wixii dibadda jooga iyo wixii gudaha joogaba oo shirkaas oo 23ka bisha ka furmi doona magaalada Boorame oo 2 casho socon doona 23ka iyo 24ka intaas ayaan isku keenay aad iyo aad ban saxaafadda ugu mahadnaqaynaa sidii aan noola shaqeyn jirtay noola shaqeeya